markii qaraxyadii nukliyeerka dhaceen wiilkan yar wuu badbaaday sababtoo ah qaboojiye ayuu ku dhex jiray markii uu ugu dambayn bannaanka u soo baxay qofkii ugu horreeyey ee uu arkay wuxuu ahaa nin xirnaa tilix eber bower armor ilbiriqsigaas ayaa noloshiisa dhan beddelay laga bilaabo maalintaas wuxuu lahaa hal riyo inuu xiro gaashaankaas oo uu noqdo geesi ka mid ah westalaandka magaciisu waa maximus wuxuu ku biiraa urur la yidhaahdo brotherhood of steel ma aha oo keliya inay ilaaliyaan tiknoolajiyada way maamulaan brotherhoodka dhexdiisa aqoontu waa awood fiisigisku wuxuu ka qiimo badan yahay xoog jidheed waxay mar walba ku barayaan hal inaad dagaal taqaan ma ku filna waa inaad taqaan waxa mudan in la badbaadiyo haddii kale waxaad uga faa'iido badan tahay adigoo laakiin riyadu kama fiirsato darajooyinka maximus wuxuu doonayaa inuu noqdo laakiin xaqiiqadu waxay leedahay dhibco liita ma jiro darajo had iyo jeer waa la iska indhat halkii laga tababari lahaa waxaa loo diraa shaqooyinka wasakhda ah iyo dayactirka ay cid walba neceb tahay nasiib wanaag wuxuu leeyahay saaxiib dana waa kan ugu sarreeya fasalka caqli badan la ixtiraamo weligiis maximus hoos uma eegin mararka qaar xataa wuxuu si qarsoodi ah ugu kaxeeyaa bakhaarka hubka si uu gaashaan laakiin bower armorku waa xadidan fursaduhuna sidoo kale waa xadidan yihiin maalin maalmaha ka mid ah dana waa la doortaa waa la dalacsiiyey wuxuuna noqdaa aspirant magac ahaan waa weyn laakiin xaqiiq ahaan waa qof qalab gaashaanka nadiifiya qalabka culus qaad haddana waa tallaabadii ugu horraysay sababtuna ma ahayn nasiib brotherhoodku waxay dadka u dirayaan westalaandka si ay u raadiyaan qof sita qalab tiknoolajiyadeed oo awood u leh inuu beddelo dunida oo dhan